xiisad milatari oo u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka ayaa u muuqata inay sii xoogeysanayso iyadoo laga cabsi qabo in Ruushku uu guuleysto haddii Mareykanku ku guuldareysto inuu si degdeg ah u bixiyo gargaar milatari oo dheeraad ah sida ay sheegeen madaxda u sarreysa sirdoonka Mareykanka oo Isniintii la hadlay golaha Koongareeska ee Mareykanka. warbixin arrintaasi ka diyaariyay wariyaha VOda Jeff Selden waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre Aadan. digniinta Isniintii ayaa ku soo beegmaysa ku dhowaad hal bil kadib markii aqalka sanadka ee Mareykanka oo uu codeeyay sharciga gargaarka dibadda kaas oo u ogolaanaya $60 bilyan oo gargaar in la siiyo Ukraine. balse sharci dejiyaasha aqalka hoose ee Koongareeska Mareykanka ayaa iyagu diiday in sharcigaasi loo codeeyo, taasoo keentay in dalalka kale ee reer galbeedku ay ku dadaalaan sidii ay Ukraine u siin lahaayeen hub iyo saanad ku filan oo ay kaga hortagto weerarada cusub ee Ruushka. agaasimaha sirdoonka qaranka Mareykanka Avril Haines ayaa sheegtay xubnaha guddiga sirdoonka ee sanadka in $60 bilyan ay muhiim u yihiin difaaca Ukraine. agaasimaha CIA-da William Burns ayaa isaguna u sheegay sharci dejiyaasha in dagaalku uu gaaray meel qadhaadh, waxa xigi doonaana ay ku xidhnaan doonto hadba sida uu Mareykanku u maareeyo kaalmada loogu talagalay Ukraine. Haines iyo Burns ayaa labaduba waxa ay ku celceliyeen qiimayntii hore oo sheegaysay in Ukraine ay iska difaacday Ruushka iyada oo khasaare ba'an u geysatay. saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa rumaysan in ugu yaraan 315,000 oo askari oo Ruush ah la dilay ama la dhaawacay, waxaana la burburiyey 3/2 kaydkii taangiyada Ruushka ee dagaalka ka hor. ciidanka Ruushka oo ku guda jiray barnaamijyo lagu casriyeeyay ciidanka ayaa barnaamijyadaasi ay dib u dhaceen dagaalka awgii. duulaanka Ruushka waxa uu sidoo kale sabab u noqday in dalalka reer galbeedka isku soo dhawaadaan iyadoo Sweden iyo Finland ay ku biireen isbahaysiga NATO. laakiin madaxda sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in guuldarrooyinka istiraatiijiyadeed aanay weli hor joogsan qorshayaasha dagaalka ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa sidoo kale u arkaya ama muujiyay calaamado muujinaya in uu weli sii wadi doono madaxweynaha Ruushku qorshaha lagu casriyeeyo laguna xoojinayo hubka nukliyeerka ee Ruushka, kaas oo la rumaysan yahay inuu yahay kan ugu weyn adduunka. waxaa jira calaamado muujinaya in Ruushku uu diyaar u yahay inuu ka faa'iideysto fursadda kala go'a taageerada ee Ukraine. qaar ka mid ah sharci dejiyaasha ayaa walaac ka muujiyey xogta ay soo gudbiyeen sirdoonka Mareykanka, iyaga oo ku booriyay asxaabtooda kale in ay soo saaraan sharci ku saabsan in Ukraine la siiyo saadka iyo kaalmada ay u baahan tahay.